يا ليلى ليلى لدواي لانت ليلى Laylo iyo Qays waa sheeko jecel oo ka mid ah sheekooyinka ugu caansan bariga dhexe. Sheekadan waxa ay taariikhdeedu u noqonaysaa ilaa qarnigii 7aad. Laylo iyo Qays waa sheeko sidoo kale ku faaftay waqooyiga Afrika iyo Indiya. Haddaba Laylo iyo Qays maxay ahaayeen? sheekadoodu sidee u dhacday? يا ليلى ليلى لدواي لانت ليلى لما انتيد لقيد هذه اللحظة قال الذي بواي ليلى لا بيعلم ليش كسر ولا بحبك لها ليلى ninkii la oran jiray Majnuun, ninkii waalna oo magaciisa caadiga u ahaa Qays, ayaa Laylo kula kulmay sikadiisa meel ay dumar xaflad ku lahaayeen. dabadeed waxa uu bilaabay in geeliisu uu gowraco munaasabada haweenka awgeed. haweenkan waxa ku jirta Layla. Laylo waxa ay jecel u qaaday Qays, isna midkii la mid ah ayuu u qaaday. si dhaqso ah ayuu Qays u doonay Layla inuu geed fadhiisto oo waxa uu weydiistay aabaheed, balse nasiib darro Layla aabaheed hore ayuu nin kale ugu ballan qaaday inuu inantiisa siinayo. Qays arintaasi waa u cuntami weysay, waxa uuna ku adkaystay in Layla la siiyo, halka Layla aabaheedna ku adkaystay in inantiisa uu nin kale u ballan qaaday. Qays waxa uu noqday nin jecel qaaday, laakiin inantii uu qaado ku hungoobay. Qays oo jecelka Layla uu ku dheeraa ayaa ka samir waayay. dabadeed waxa uu bilaabay inuu dugaagga weheshado oo uu duurjoogta u tago. Qays aabihii ayaa isku dayay inuu iloosiyay inankiisa jecelkan haleelay, balse Qays xanuunkiisa waa uu ka sii daray oo waxa uu noqday nin waalan oo xiskiisa ayaa raacay. Qays waxa uu u tiriyay Layla gabayo badan oo mar ku amaanayo, marna ku calaacalayo, marna uu ku muujinayo marxaladan cusub ee la soo daristay. gabayada Qays uu u tiriyay Layla waxa ay qayb ka noqdeen suugaanta Beershiya, iyagoo u isticmaali jiray siyaabo kala duwan. waxaa la sheegaa mararka qaar inay u isticmaali jireen heeso hooleedyo. isla markaa uu Qays ku sugnaa xaaladaas, Laylo waxa ay joogtay gurigooda oo lagu ilaalinayay, iyadoo gabayada uu tirinayo Qays ay ka dhigeen Layla mowduuca kaliya oo loogu sheekaystay xanta dadka. Layla aabaheed waxa uu balan ku galay inuu Qays ka ilaaliyo Layla qiimaha ay doonto ha uu kacdee. waxaa la sheegaa in nin la oran jiray Ibn Salaam uu weydiistay Layla aabaheed inuu siiyo, laakiin Layla aabaheed waxa uu ninka u sheegay in inantiisu wali yar tahay oo uu sugay ilaa dhowr sano si ay ugu soo korto. Qays wuxuu galay nolol adag oo silac ah. sheekadii Qays waxa ay gaadhay nin la oran jiray Nasimis oo ahaa nin deeqsi ah oo sida la sheegay boqor ka ah dhulka Beershiya ee hadda loo yaqaan Iiraan. ninkaas oo isku dayay inuu Qays la taliyo, laakiin markii uu kala kusto waana iyo talo ayaa la sheegay in boqorka ay gaadhay inuu weerar ku qaado Layla reerkii ay ka dhalatay, isagoo ka doonaya reerkaas in Layla iyo Qays la isa siiyo haddii kale dhiig daadan doono. inkastoo dagaalkii dhacay la jebiyay Layla reerkii ay ka dhalatay, haddana aabaheed waxa uu ku adkaystay in aanu marnaba la siin doonin Qays, isagoo ku dooday in Qays dhulka dhigay oo burburiyay sharaftii Layla. Layla aabaheed waxa uu oran jiray dabeel kasta oo soo dhacday waxa ay sidaa magacii inanteeda, isagoo sheegay in Layla uu Qays siiyo uu ka dooranayo inuu dilo inantiisa. boqorkii wuxuu ogaaday in aanu ku guuleysanaynin inuu Layla aabaheed ku qanciyo inuu isa siiyo lamaanaha isku dhibaataysan, faraha ayuuna ka qaaday. arrintii Layla iyo Qays, ninkii Layla loogu ballan qaaday ayaa doonay inuu ka faa'iideysto jaaniskan, isagoo u yimid Layla aabaheed mar labaad, balse markaan si dhib yar ayaa Layla loo siiyey, wuxuuna Layla u kaxaystay gurigiisii. Qays markii uu maqlay in Layla nin la siiyey ayuu ka sii daray, waxa uuna wehel cusub ka sii yeeshay keentii uu markii horeba dugaagga la joogay. Qays aabihii waxa uu la dhintay murugadii iyo urxumadii uu ka qaaday noloshii uu la darsay inankiisii, isagoo Qays ahaa inanka kaliya uu lahaa uuna u jeclaa si aad ah. Qays markii uu maqlay in aabihii uu dhintay ayuu xaalkiisa ka sii xumaaday intii hore, balse nin qoyan biyo iskama dhowree, isaga ayaaba tiisa la ildaran. wuxuuna aabba ka sii dhigtay oo booskii aabihii u sii buuxshay habar dugaaggii uu la noolaa. inkastoo Layla la guursaday, haddana may ilaawin jaceylkii Qays, waxaana ku sii siyaaday jaceylkii ee Qays u heesay. Layla waxa ay warqad u dirtay Qays iyadoo ugu tacsiideynaysa geerida ku timid aabihii, waxayna u sheegtay in ninkeedu og yahay inay Qays jeceshaha oo aan weligeed qalbigeeda ka bixin. muddo kadib waxaa dhimatay Qays hooyadii. Layla waxa ay fariin u soo dirtay Qays
iyadoo u soo dhiibtay fariintaasi nin waayeel ah una sheegay in Laylo ay doonayso inay kulmaan. Qays waxa uu raacay ninkii, waxaana mar labaad kulmay lamaane isjeclaaday oo dhib adduunyaha leelay. Laylo ninkii la siiyey waxa uu ogaa in marna qalbiga Layla ka saari karin Qays, balse Laylo ninkii la siiyey ayaa xanuunsaday kadibna waa uu dhintay. sida dadka dhaqanka u ahayd gabadha carmalka ee laga dhintaa 2 sano ayay ahayd inay ku jirto guriga oo ayna muddada rag la kulmin. Layla iyadoo uma dulqaadan karto muddadaas dheer ee ayna Qays is arkaynin way xanuunsatay kadibna waa ay dhimatay. Qays markii uu maqlay in Layla ay dhimatay oo dhulka ka hoos martay ayuu aad uga xumaaday, wuxuuna boqday xabaasheedii. halkaasna waxaa ku soo afjarmay noloshii Qays, waxaana uu ka daba tegay Layla, isna waa uu dhintay. inkastoo sheekada jaceylka Qays iyo Layla ay adagtahay in si dhab ah loo helo, waayo waxay dhacday qarni aad u fog, haddana sidaan ayaa ugu dhow sida maanta loo wariyo.